wafdi ka socda hay'adda UNICEF ee WFP isla markaana ay horkacayaan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo gaaray degmada Luuq ee gobolka Gado waxaana garoonka diyaaradaha si wacan ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Luuq soo dhaweyn kadib ayaa waxay kula la qaateen maamulka degmada Luuq waxaana ugu horeyn ka warbixiyay ujeedka socdaalka wafdiga gudoomiyaha degmada Luuq mudane Maxamed Cabdullaahi Muude Garoob waxaa maanta degmada Luuq soo gaaray wafdi ballaaran ka socda hay'adda WFP iyo UNICEF wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradda caafimaadka federaalka xubno ka socda ujeedkooduna wafdigaas waxaa sidii ugu kurgeli lahaayeen baahiyaha bulshada ka taagan deegaanka Luuq ka taagan baahiyahaasoo muddooyinkanba aad u soo kordhayo oo maalin ka dambeysay baahiyaha soo ziyaadayeen wafdiga laba qaybood buu ahaa kula socodkooda midka koowaad wuxuu ahaa uu kurgelidda xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan deegaanka iyo dabagalka waxyaabihii sanadka hore ay soo dhiibeen dabagalkeeda waqtigaas meelo badan baan geynay sida xarunta SRDA iyo xafiiska maamulka degmada Luuq baahiyaha degmadana waa ka warbixinay haday ahaan lahayd mid magaalada gudaheeda iyo haday mid ahaan lahayd deegaanada kale sida Yurkud iyo deegaanada ku xeeran oo muddadii 8 sano ah ee gacanta ku jirta dowlad goboleedka Jubbaland aanay helin wax gargaar bini'aadanimo ah kama balahan waxaan har yaabeen u taaganahay soo dhaweynta iyo wacyigelinta bulshada sidii wax loogu qaban lahaa hay'adaha samafalka annagu haddaan nahay maamulna waxaan mar walba iyo mar labaad iyo mar walba u taaganahay in aan baahida bulshada u istaagna habeenii maalinba haddii anaga karaanka naga ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd u qaylo dhaaminta hay'adaha samafalka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الولي يوسف عابي تي في عالمي رويال 24 مقالة اللوق